بسم الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنيقو نبضون آذن عبد أمين كان من نبضون هذا بيشا قال جعل بين الله يبارك وعلينا كونفور قلبين هذا ريال كونفور قلبين وسيدة دكتورتين وباي بكول يشبه لها خاص haddii ay sidaas tahay oo deegaanka la wada degan yahay haddii aad aqoonsato waa sida la rabay qaladaadka aad sameeynaysan oo maalin walba aad sameeynaysan hore usoo sameyseen iyo hadda waxaad sameynaysaan dee waxa waaye waa waxaad ku socotaan qaladaadkiina ma ahan mid aad walaalow aad ku daynaysaane waa mid aad ku day doontaan insha allah bidnillaahi kariim sidii horeyba u dhacday aad ku day doontaan haddii koonfur galbeed hadda mas-uul buu leeyahay nin baa ku magacaaban wax kasta oo dhaca waa lafta gareen kow odayaasha dhaqanka nin baa afhayeen u yaalla warninkaad afhayeenka ka dhigateen koonfur galbeed iyo odayga dhaqanka aad macnaha nabadoonka ah macnaha odayaasha dhaqanka mas-uul ka yaala leeyahay war adeero ma wuxuu leeyahay macnaha ma dadkuusan kala garanayn ma dhulkuusan kala garanayn ma dhulku meeshuu ku dhashay kaliya uu ka yaqaanaa dadkan inta ku nool kaliya uu ka yaqaanaa haddii ay macnaha haa tahay adeero ummad waxa uma qaybin kartid dadna waxa ma siin kartid dadna ma soo dhaweyn kartid dhibaatayna kugu tahay haddii ay maya ay tahay oo dhulku uu garanaya dadkan uu garanaya hadday tahay macnaheedu wuxuu yahay ciddaan doonaan ka tagayaa ciddii idhir baxdana wax baan siinayaa ciddaan idhir baxina waxba sii maayo annaga siisma kaama rabne wax aan wada qaybsana nin walbana qaybtiisa qaato cidda siismada kaaga baahan si annaga laakiinse wax aan qaybsanaa joognaa wax aan qaybsana haddii aad diidana dee nin walba wixiisa ha anfacaan adigana waxaad ha ku anfaceen annagana waxayna na anfacay tashanaynaa dhinac walbana waa kaga tashanaynaa hadduu alla idmo sidaana kuma hakanayso waxaa kaloo raacinaya koonfur galbeed waa stateskana iskama taagno maalgelin baa la siiyaa federaalka ayaa macnaha hoos timaada federaalka waxaan u sheegaynaa oo uu madaxweynaha kow ka yahay farmaajo ra-iisul wasaaraha intaba waxaan la socodsiinaynaa haddii ay la socdeen waa ay la socdeen haddii aysan la socon waxaan la socodsiinaynaa in deegaankaas koonfur galbeed beesha ugu ballaaran ee dhulkaas degta in la yiri waxba kuma lahan hadalladaasna waxay ku jiraan ayagoo toos oo muuqaalna waan aragnay ayagoo maqalna waan maqalnay ayagoo mubaasharo ahna waan isla hor fadhiisanay waxaan u sheegaynaa marka wax alla yaalo wixii ka yimaado inta ku kaalmaysa oo dhaqaalaha ku bixisa deegaankaas ku bixisa ee dowladdaas macnaha fanka siisa nooc kasta ay yihiin haddii ahaan lahaayeen eedaha caalamiga haddii ahaan lahaayeen haddii ahaan lahaayeen kuwa local haddii ahaan lahaayeen haddii nidaamka federaalka dowladda federaalka ahaan lahayd waxaan baaq u jeedinaynaa intaasoo idin in ay waxa ay ugu talagaleen ee shacabkaas soomaalida ah ee ku wada nool deegaankaas koonfur galbeed xuquuqdooda ah in ay u wareegto deegaano qaas ah looguna qidmeeyo laguna soo xareeyo laguna magacaabo howlahaasna loogu qabto sidaas daraaddeed bulshadii intii kalena in ay macnaha ay ku dhibaataysan tahay ku aradan tahay haddana ay diyaar u yihiin inay go-aan ka qaataan soomaalida waxay tidhahdaa nin geed tiriyey ee yaa ka tegay geed ma xisaaben hadda koonfur galbeed oo la tiriyey gaaljacalna ma dego qof oo macnaha maskaxdiis galaysa ma lahan qof caaqil ah ama soomaali ah oo soomaali ku nool oo warkaas kaa maqli kara ma laha nin yahow dulmi haddii aad diidi jirtay
hadda dulmi doone ayaad noqotay. annagu dulmi ma doonayno. inta Soomaalida diris wanaag inaan kula noolaana ayaan jecelnahay. walaaladeena ay deegaanada degan oo aan ku dhex soconno, nagu dhex socdaan, nagula noolaadaan. waana soo dhaweynaynaa cid kasta oo doonaysa in wanaag iyo wadatashi aan ku wada noolaano. ciddii aan doonaynina waxaan leenahay intiina hadin deeqdo annagana inteena na deeqayso, intiina difaacdo annagana inteena difaacnayna sidaa doona kala yeelna. wassalaamu calaykum waraxmatullahi. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. انا نبدون اسمان معلن آذن كان سو جيده deegaanka koonfur galbeed kuna hadlaayo kana xum arinta ay ku kacday maamul goboleedka koonfur galbeed. waxaan marka annaga aan taageersanahay maalmahan arrimihii ka socday degmada Wallaweyn oo uu ka hadlayay xildhibaan aadan cabdi faarax kala diray oo ku hadlayay ayaan taageersanahay. hadalkaasaan taageersanahay. maamul goboleedka koonfur galbeed xaqii ay beeshaan ku lahayd way xaqireen, waa ka waayni. waxaan marka aan u sheegaynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo adduun weynaha intiisa kale waxaan u sheegaynaa xildhibaanka afka uu ku hadlayay inuu yahay af gaal jecel. afka gaal jecel inuu ku hadlayay ayaan waxa way u cadeynaynaa. waxaan maqlay gudoomiyaha degmada Wallaweyn asoo dhahaaya waxa soo jeedaa hiir shabeelle waa ka soo jeedaa. waxa wax lagu qaybsado hadda ama maamul goboleed ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqotay wax baa la isku darsaday. dad qabaa'ilaa wax isku darsaday, qabiila wax lagu qaybsaday. kismaayo hadduu ku dhashay gaal jecel waa matali karaa. marka waxaan u cadeynaynaa ninka la yiraahdo xildhibaan kala dire inuu afka uu ku hadlayo uu yahay af gaal jecelna uu fikirkaas isla qabo oo maamul goboleedka koonfur galbeed ay xaqireen oo beeshaas xuquuqdeeda ku tunteen ayaan cadeynaynaa. oo go'aanna aan ka qaadan doono haddii alla idmo. haddaan nahay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kale aan tegi doono meesho aan isku tashan doono, dhaqaalahayna aan ku xisaabtami doono, waxayna annaga aan isku ceshan doono, anna shaqo isku lahayn. waayo xaqayni aan ka wayni wixii xuquuq oo beeshaan ay ku lahaydaan ka wayni. waxaanu cadeynaynaa afka xildhibaan kala dire inuu yahay af gaal jecel, anna taageersanahay. arrintaasna waxaa waaye ay tahay arrin aan isla qabna. haddaan hiiraan jirna, haddaan jubbaland jirna, haddaan banaadir caasimada aan joogna inaan isla qabno afkaas af gaal jecel yahay oo aan koonfur galbeed shaqo ku lahayn. oo xildhibaanka uu afka ku hadlayo uu yahay af gaal jecel oo ay tahay bii kama dhibcaan. arrintaas haddii alla idmo insha allahu ayaamahan shirir isdaba joog oo kala socday. go-aanka ugu dambeeyna haddii alla idmo shir jira inaan qaban doonaa haddii ilaah yiraa. arrintaasaad ogaanaysiin. aad iyo aadaan u mahadsantihiin. waxaana iiga dambeeyay nabadoono kale aan kusoo dhaweynaynaa insha allah. waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. anigoo ibrahim nabadoon ibrahim sheekh cabdulle idris kana soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan ka hadlayaa ama aan rabaa inaan muxuu ahay taabto waxyaabo u baahan in la taabto lagana hadlo. in deegaanada ugu ballaaran annaga deganahay oo aan la xaqiri karin oo aan maro lagu dabooli karin. haddii laga hadlo deegaanada sida laga bilaabo Afgooyo ilaa laga taga Buur Hakaba oo aan cidna loo dhaxaynin oo intaas uu gaal jecel degan yahay 400 ilaa 350 isku weer inuu gaal jecel ka degan yahay dhulkaasi. ayadoo sidaas la og yahay oo dhulka baaxadda leh deegaanada aad ku faraha badan leh uu ka degan yahay gaal jecel ayaa madaxdii maamulka koonfur galbeed waxay ku dhiiratay oo ay qaadatay in ay ka tagto beesha gaal jecel oo ay ku samayso midab sooc, xaqiraad iyo yasitaan. taas kana baxsan xeerkii iyo nidaamkii loogu talagalay in lagu sameeyo maamul goboleed. sidaa daraadeed kadib markaan ka weynay xuquuqaadkii aan ku lahayn maamulka koonfur galbeed Soomaaliya
markaan in muddo ah daba joognay madaxda maamulka koonfur galbeed oo aan sheegaynay in sidaani ay sax ahayn oo deegaanka aan deganahay la ogyahay cid inkiri kartana aysan jirin dhag jalaq noolisiin waa madaxdii aan in badan muxuu ahay daba taagnayna aan kasoo waaynay derbigan aan soo taabanay maanta waxaan xaqiijinayaa oon ayidayaa oo aan garab istaagaa oo cod iyo cudud intaba aan ku garab taaganahay xildhibaan aadan cabdi faarax xildhibaan kala dire oo muddooyinkanba ku sugnaa degmada wallaweyn ilaa degmada leego ilaa muxuu ahay goobaanle intaba ka waday abaabul iyo nidaam iyo howlo nabadeyn ah iyo habkii beesha ay ugu tashan laheyd maamulkaas koonfur galbeed ee xaqiraada iyo midab sooco lagu sameeyey waa garab taagannahay xildhibaanka codka ku hadlay aan taageersanahay haddii aan nahay beesha gaaljecel iyo nabadoonada beesha gaaljecel dhanka kale ninka odayga degmadan guddoomiye ka ahay dhahay ee ku xaraysan gurigiisa mudulkiisa ku xaraysan oo aan kasoo dhaqaaqi karin mudulkiisa oo aan hab dowladeed ama hab degma isan u shaqaynin degmada wallaweyn waxaan sheegayaa ama aan caddaynayaa hadallada deelqaafka ah ee meelka dhaca ah ee ku gafka ah beesha gaaljecel ee ninkaasi uu ka hadlay waa inuu raaligelin ka bixiyaa dadkii intii kuwii soo dirsadayna waa inay ayagana raaligelin ka bixiyaan ee ninkaasi ay canaantaan mana suuragelaysa nin noocaasi u hadlaya inuu degmada wallaweyn aan wax ka noqona ama hadda aan ka ahay inuu yidhaah kama dhagaysanayna mana ka aqbali doona war u soconayana warkaas ma aha mideeda kale haddii degmada wallaweyn nimanka sheeganaya ee ninka odayga uu hadlay ee deelqaafka iyo aflagaadada ku hadlayay haddii sida uu sheeganayo ay sax tahay degmada wallaweyn cashuur ha laga qaada degmo waxaa lagu yaqaanaa in cashuur laga qaada meel maamul ka jira cashuur ha laga qaadaa cashuur ha laga qaada haddii ay muxuu ahay meesha ay tahay meel degmo ninka sheeganayo uu leeyahay ama maamul koonfur galbeed waxaa la dhahaa ay ka shaqeeyaan cashuur ha ka qaada oo muxuu ahay ha yimaade muxuu ahay cashuur ha ka qaada haddii macnaha uu sheeganayo degmadaas degmada dhaqaalaha degmada wallaweyn ay ku fadhisa muxuu ahay soo gala oo ay ku degan yihiin dadka degan degmada wallaweyn waxaa iskale beesha gaaljecel hadday xoolo ahaan laheyd hadday ahaan laheyd xoolaha noocyada kala duwan haddii ay ahaan laheyd beeraha ganacsiga noocyadiisa kala duwan nimanka meesha degan waxaan aaminsannahay inay muxuu ahay annaga nagu nool yihiin oo annaga meeshaan muxuu ahay keenay oo ay yihiin dad masaakiin oo degan meesha kuna nool gacanta beesha gaaljecel nimankaas jawaab cada laga rabaa degmada wallaweyn waxaan ogolnahay si nabad ah oo walaalnimo ah inaan ku wada deganaano haddii taasi ay rabin oo ay diidan yihiin oo annaga muxuu ahay nagala gacmahaya yaan lidin gacmahayn wax alla waxaad awoodiyay soo daaya degmadaasna hadda kadib muxuu ahay islama sheeganayo insha allah waxaanu sheegaynaa in maamulka koonfur galbeed annaga shaqaan ku lahayn beesha gaaljecel inta deegaan ah oo aan ka degna oo dhulkaas baaxadda weynay dadka iyo dalka iyo dhaqaalaha la isku darsaday inaan kala laabanay oo annaga aan deegaanadeena u tashan doono dib dambana aan ugu dhagaysanaynin maamulka iyo khayaanada iyo dibindaabyada maamulka koonfur galbeed markasta beesha gaaljecel uu ku wada insha allahu waxaan beesha gaaljecel waxaan u iclaaminaynaa oo aanu sheegaynaa dal iyo dibid iyo meel kastoo ay muxuu ahay joogto in la isugu yimaado degmada wallaweyn shir weyne lagu qabto oo looga tashanayo sidaan maamul ugu samaysan lahayn deegaanka iyo dhulka annaga aan leenahay cidna deegaankeeda cid kale uma dhista annagaa dhisanay deegaanadeena annagaana dhisanayna cidan u baahan nahay nama jirta dhaqaalaha waddanka waxa kala wada oo maanta lagu tiirsan yahay waa dhaqaalaha beesha gaaljecel haysa nimankan marka boodboodaya
lafta gareen warboodayo uma baahnin waa ka leexanay maamul ka gaar ah oo ayaga ka duwan aan samaynayna dadka sanka la iskaga muduri kara rabitaana lagu wada joogi karaa iyo in muxuu ahay walaalnimo iyo diris wanaag iyo lis ixtiraama tii haddaan la weyn cidna oo muxuu ahay laga dhegaysanayo ma jirto cidna ma loo sunduraanayo insha allahu waa ka tashanaynaa gudaha iyo dibaddana meesha gaarjac waxaan ku sheegaynaa inay yimaadaan muxuu ahay degmada walaweyn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu